Abdullah waxaan ku weydiiyaa idinka dhixi jiray malaga maanta moof iyo muuf waaye ayamadiina eebowna mooti wa erjarteena xaal ante marohay wili dadkii gararafa lisiyo hayeen wuxuu yiri masqaniya yaa iyo libaax micida saariyaab maral loo dilyaa iyo si kale loo macneeyaaba naf waliba mudday leedahay maalin iyo saacad mugaminay muuf iyo muuf naqatiyo minay soo taagtaagan yihiin qof walba saacadii loo xariiqay xabad loogu diray ma xabadna laga dhimi ma bulqaaqtankayga la miyu gabayay amsoo geeraaraya Soomaali waxaan admay koo ka jira war waxa taagan masiibo midii ugu dareed hadaan maanta macneeyo cidda maamulka hayso matalaysa dadkeena maxay Sacuudi ku raacday warani warkiin haaya ilmay leeray tufki duraw ma aragaas Soomaalina lanki dheer ee yoonay lanki dhibyo ee bama gorodayaan meel walbareed hambariirismaana isku habsadayaan lay waxa weerarina taxiilka u xisheen baago tilaabtii u dambaysa iyo tilaabtii ka horeysa iyo tii kale oo ka sii horeysa baa la cantoobsaday tii koobaad waa ila reysayo qatar iyo dawladaha kale dhexdhexaadan ka nahayay ahayd tan ugu dambaysa ee dawladdu tiri Sacuudi iyo Canada Sacuudigan la safanaha ay dhaheen oo qashay tubta ceeb looma dhinto warniyo waxa tiin maskii labada madax lahaa abwaan gaariyo wuxuu yiri marna raaciye reer galbeed cay marna ruush aad mar rugteeni reegan kula xidid oo dalka barahan marna riidaash salaan raad gadan oo ruuxashiya ka ah godob reeb riyaad kula toos oo riyaalkii nafta kula rur war hadda taasniyo waa habar ewel may duceysanaayeen waraada rood waaranta marxuunkayga soo xabaala toosiniyo warka naga dhaxgelinina markii la yiri Sacuudigan la safana ay war soo saar Sacuudi ma taageereen cilsha xoolahooda ونمايو سعوديو تاgeeradeena miyay ka caroodeen xoolaha maxay soo celiyeen lanko abwaan ee ma eray lanki shalay gumeysisiin la faday gargaarka kiidin aan fadana waana gaal gaduudun hay ya gaduudo arbeed erteen galabtu walaay ka bilaawad hadii guul aw rahmaa gaamano nanteegana wallahi garguursha aakhir la ka seeday waari no warsalaad guluyo idu kulama gabaydaan abwaan xasan ganay wuxuu yiri reerki ka dul guuriyo dariskii wax kugu tara markay dan ku haysaa dadka kala ogaata waxaan ka wada markii aan burburnayeen la gacan galay dadkaanu kala firfirxaday Canada dadkii tagay waa soo dhaweysay Sacuudiguna waa soo tarxiiliyay warnimaysa ku leelin wuxuu ahaa ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tagay sama kuma banaane alla barasho waxana waa la sii raaciyay barasho raysahe marka nimayahow dadka in la kala barto waaye warnimada mir su'aala ku dhawaad 10 wasiir oo golaha wasiirada ka tirsano wasiirka arrimaha dibadda ka mid yahay waxa haystaan dhalashada Canada go'aanka wax ma kula haayeen wax ma ka ogaayeen arintan warniyo raga aad sheegayso we are so sorry ay Gmail kugu qoreen Canada soortu ma qamirshiiday ahayd ma samid la tumayay ahayd war wasaaradda arrimaha dibadda go'aanka soo saartaa la leeyahay wasiirku wadankiisa miyuu ku xadgudbay warniyo raali ah wasiir dawladda jira meel waliba aadaya war su'aal da'wiin waatu dalku ay iska leh war adeer afkood iyo dhagood miyaan isba maqlayn aryaadaha maanta wixii ka dambeeya waxa la yiri abniga gobolka Banaadir booliska cidaan ahayn laguma arki karo waa baliiska hadda nuga ciidamadii dharka kala gedgedisana kala midabada jidadka la rorgi jirtay cidii u gelisa dharkaas shaqo hawdirsato war ciidamo barxan ay dhibteena booliska barxanya mas baraxtiranya haday baraxay cabaan helayaan hay ku diidayaan waaba rabaane war waxana geeli halkay u fadhiyaan nimayaha taliyaha ciidanka booliska hadda ka hor waxa uu sheegay in booliska Soomaaliya loo aqoonsaday booliska adduunka ugu fiican madaxweynaha ka rumaysayna waa uu dalacsiiyay laakiin aniga maanta run u sheegay hadii wax iga dhageysanayaan saldhigyada booliska gobolka Banaadir saldhigi ay ku qoran tahay 30 askari 10 kamid ah waxay ku maqan yihiin shaqo leexsan 10na waa sacboolay 10 ka soo hartayna shanaba hurdayaan ama qayilayaan shanna saldhiga ay joogan shanta saldhiga joogtana qoriyahooda min 3 badood ayaa ku jiray wax la mid ah marka nimanyahow hadii sidaas booliska ugu fiican lagu noqonayo amni waxa ka qabteen war adiga yaad u baaqaysaa yaa ku yiri sirta ciidanka faafi iyo awoodooda dagaal saldhigyada la soo weeraray warkaagu yaa hal soo weeraray kama wadiye cadawga siyay uga hortagaan digniin oo faafihayo xumaan kama wadiyo abeesi fuula keenka laabanto bajaaj leeydi reer baydhawa
inoo shaqaystaan walan fasahay shariif ma ku dhawaaqay inuu musharax yahay hadii hunduro ay taada meebaha kati obowroobo mansuura madawiinaga koonfur galbeed lagu weerikii warnimayo magaalada jigjiga waxaa iska hor fadhiyay militariga Ethiopia iyo ciidankii Liyu Police kuwii Liyu Police-na waxay yiraahdeen haddii kuwa ayaan jabhadnimo soo bilaabayna duurka ayaan galaynaa bay yiraahdeen xaafadii oo aan elf ka soo guurtayba warniyow Soomaaliland waa loo yaabaayo ilaahow naga bixi dambaabuladu malaawana soo gaari doontaa wuxuu yiri masruufkay ka doodaa hadduu gala maseernaag marashana ma heesday tiraa maalma dabadood warnimayo maxkamadda wax la xukumay niman burcad ayay ahaayeen aan maxkamad baan ku sheegay warka iga dhigayso malaka ku qoor dhabe dadkaanu ma masaysan yihiin qofba meel warka la aadayso lama dhigi karti anna oraa ya ku iraahan weliba ku jeegadhaba war abwaanadan buugaagta sito maalin kasta u sii socdo jaamacadan Afrika ma siyaasad bay rabaan ma suugaantiya laga dhagaysan waayay ma shaqo kale waayeen wuxuu yahay baraarugan hadda cusub warniyo gabayada sida loo qoro ayay ka baranayaan war dawiya wal mooshidi darawalka oo bashiida naamleeynagade warnamleeyaha ma aqaanne shaqada ayaa laga joojiyay wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda war muxuu cibaadaysan waayay abwaan yemyem wuxuu yidhi fatikurus baruur iyo wankii gaadabala xoobay markabkii aan buuxshaba wuxuu beeca uga laabtay beeshaa saboolkaa inuu baaba'duu rabay waxaan uga jeedaa wasiir ku-xigeenka shaqada laga joojiyey waraaqda sacuudiga lagu taageeray wasiirkii qoray miyaa oo ariga nagu soo celiyey warniyo gabayga kursiga lagu sheegay berideedaad ayaa laga iloobay hataa tuurtilooda waa laga ilaabay waraadal xagala geel wax guntiga la geliyo way ka weyn tahay ka soo bixiyahe eringa la tarhiili geeki iin awlan naftay isagaha aryaadaha xoolo la soo tarxiilaa waxba ka sheegine gabdhihi loo geeyay sacuudiga shaqada maad aragtiin amshu Soomaaliin amshu surca xaala sumca amshu baladakum naga tay oraa murankiina lagu batay maxaa horta sida xoolay ugu hadashaa yalla surca yalla الغنم ترحيل النساء في الدقول مية نعم ايوه بدنا تك 14 سنة انا غنم وراشفي انت مخك وانت مخك كبير هكذا اللعب روح فرقها كاغا دخو يلا السجن هذا تكلم هذا تعبان عرفت سبعا فلاس انا ما يكون راسي وانداذن اقم شخفر سودان الغير شوف وجهك الصومالي روح ونغا تك ادغا روحايه رشا كوغو فوقتي